بسم الله الرحمن الرحيم وفتي مدحوينه قابلنا يا ددوينه ريت على دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتي مدحوينه قابلنا صالة سعطان وشددي سوحة هايد قرمتك أبارة قرمتك إلهي باله السجارة البرية انتي بني آدم كراون بانو ددالينا وفتي وحو كلك ورا ويمد إنه ضد كدبتي سلاق يبصدق ورا وركو أهانين wuxuu yimid inuu xoogaa noqdo meel walba xaaladu say tahay wuxuu yimid markuu war la helaa tala la helaayo ka bacdina inuu qorshaha mustaqbalka ku tala galo ilaahay baa dee talagal kale oo ay baryeenaaye haddii ay sidana ku sii socoto sidii wax loo qaban lahaa qorshaha fog hadda hawlaha socdana in la saxo oo la kontrolo haddii ay wax qaldani jiraan sida odaygii halka ka dhawaajiyey oo yidhi dadka maaragtay meelo unbaa wax lagu tuulay waxay ka mid tahay in la hubiyo hadba halka u daran waxaa nala socdaa culimadii qaabilsanayd taakulaynta abaaraha oo iyagu marka warka la sheego qaadan doona siday wax u saxayaan dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah dadku waa reer guuraa weliba beriga hore awrtooda ka soo guurayeen oo mudday qaadanaysa iminka gawaadhi baa rarta markaa meel baa la dhigayaa maanta intaasoo boqoloo qoys warkii baa soo gaaraya dawladda qorshaa la gelayaa guddidii abaaraha la howlgelinayaa marka hawshii soo dhaqaaqdo ee lagu soo bilaabo halkii loogu talagalay meel heblaayo ayaa haddana dadkii la rarayaa meel kale la geynaya markaasaa reer dadkii mar laba haddana soo guurta noqonaya haddana inta hawshii dib loo soo kala majiinayo ee dib laysugu soo habaynayo ayaa maalmo qaadanaysa taasina waa ta keenaysa dhibaatada iyo inay marar badan isa seegi karaan wixii taakulinta la soo waday iyo deegaanku waayo dee reer guuraagiyo maalintii markuu dhowr cisho meeshii deganaado ee addaaq xoolay ka waayaan ee iyagiina ku haraadaan intii loo soo socday si waayo haddana meel kaloo guuray baa laga daba tegayaa markaa waxaynu u baahanoo socodkanu yahay in qorshayaasha dhan la isla eego in muddada soo socota iminka waxaynu joognaa waa dayr dabadeed jiilaalunbaa la eegaa ilaahay waxba kuma aha waa tusan yahay laakiin haddiiba jiilaalku dheeraado oo dayrta la waaya jiilaalkana raaco kalina ka dambayso dawladda xilka saarana madaxweyne imika u socdaa waxa weeye dhammaan in muddadaa maxaa la qaban karaa qorshaheenna iyo itaalkeenna iyo ducadeena aan isu geyno hawshaanu soconnaa waa taa madaxweynuhuna tuulooba tuu isu taagayaa waa taa halkaa wasiiradii oo dhan baa dhammaantood intoodii badnayd waxaa jooga wasiirkii caafimaadka waxaa socda wasiirkii beeraha waxaa socda wasiirkii xanaanada xoolaha waxaa socda wasiirkii maaliyadda dhammaantood wuxuu madaxweynuhu soo kaxaystay inaan dib loogu noqon hargeysa iyo telefoon iyo heblo waxaa soo qabo ee wasaarad walba wixii halkaa la gooyey iminka geedka hoostiisa in amar lagu siiyo hawsha loo socdaa waa taa dalka dhan loo marayaana waa taa waxaana loo soconayaa ilaa dalka halka u baryeysa insha allahu sool baa la tegi iyo tuulooyinkooda dhan waa la mari goob mid walba wixii loo qaban karaa la qaban waxaanu aaminsannahay haddii ilaahay idmo oonu isku kalsoonaano oo somalilan iyadu isku tashato inta ilaahay ka sukaysa tamarteeda inay dadkeeda badbaadin karta in badan wixii ilaahay badbaadinayo waayo awooddeeda iyo kartideeda ilaahay waa inaseeye maalkeeda iimaankiina waynu leenahay isku kalsoonida iyo waxwadalaanshiina waynu leenahay marka maanta waxaynu u wadajeednaa dhammaanteen waxa weeye inaynu u gurmano dadkeena jilicsan aad iyo aad baa umahadsantihin wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu